السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحابتي قالي جواد السلام ميل والبادونية كجوكتان كسر بعد مقال عصب وترتن كانت تيمها قيبتي سلبات هدي أصدق بطي بارت 1 بارت 2 وحبدنا كفاهم دونتا ترتن كام حصو عندنا مدبل أما صدق مع لسه ده وتقاني السود بعد إن شاء الله ترتن كام حرجنا إن كود هاري دوني دمانتينا كفا إذا سدونتين ما دام إن بدنا يقصوا على لسان أباي وحياة بقول لقاه لا ناقص ما ترتن كا أنا قدرنا أوقع قيب قادنا ده كعبني سداد شو يبحث الآن ترتن كا وترتن كا مقال كلايك صار شير جري سدوا كل فلو نصاري هذا نقدر من تيك توك أما بيج كذا يوتيوب نقدر من سبسكرايب نقدر nagu soo biirsi ugu mid noqday asxaabteena mar walba tartamayaasha waa tartankii la magac baxay quusta timahaaga u bedel timihii hore aa ku riyoon jirtay ku soo dhawaada insha Allah part 2 hadii aad part 1 soo daabatay wax badan aad ka fahmi doontaa maaskiga wuxuu ka sameeyay inta baad soo aragtay maaskiga marka koowaad babyda u marinaya tinta waxa ugu soo dhigay 5 qaybood ugu soo dhigay kadibna maaskiga u marinaya ma sha Allah tabarakallah maaskiga si fiican timaha ugu duugaysa salkoos ilaa afka hore si fiican u mari marka maaskiga marinaysa sida nafaqada salkoosna ay u qaadato afka horena si fiican ugu masaaj garay nafaqada salkoos way u gudbaysaa tintaada hadaa rabtid inay ku baxdo ama ku dheeraato ama daadasho aad joojisid tintaadu waxay u baahan tahay jadwal saxan inaad u samaysid waxyaabo badan aan ka sax ku dhigi doona insha Allah muuqaalka dhexdiisa muuqaalka bilow ilaa dhamaad dhameyso si wax badan uga faa'iido ma sha Allah tabarakallah si fiican ugu marinaya qaybtiya waxa marinayaa saacado fiican waxa la rabaa markaa marinaysid inaad si fiican ugu masaaj gareysid timahayga wasaq waay ama timahayga nadiif waay hadii aad ku fikiraysid ma marin karaa maaskiga waa marsan kartaa maaskiga halkii qayb maxaa si fiican ugu marin oo ugu masaaj gareynayo ma taqaanin wuxuu ka qayb qaadanaya salkoos inuu si dhaqsi leh oo u galo maaskiga markaa marinaysid timaha ku masaaj garay tinta si fiican u gali ku duug si fiican afka hore salka hoose ma sha Allah tabarakallah ma ka sahili kartaa natiijo adigana aad ku faraxdid maaskigan insha Allah waxa marsan doonaa isbuuci 3 jeer ka marinaysa timahaaga qaabka ugu dhaqaysid shaambada ama conditionerkan waa ku sharxi rabaa ha ka tagin muuqaalka iska dabinin insha Allah si tartiib u dhageyso intaadan comment soo qorin ma fahanteen asxaabta dhageyso inta tartan ka socona YouTube ma ka socona TikTok ma ka socona WhatsApp group ma jiro ay waxa ka soconaysa qof walba meesha uu iga xiran yahay YouTube iga xirta YouTube kala soco muuqaalada ku soo gali daawo sameeyo maadaama mashquulka iska badan yahay qof shaqeeya ahay ma awoodi karo inaa WhatsApp idinku wada keeno ma fahanteen teamka WhatsApp ka ku jira ayagana insha Allah waa nii soo share gareena muuqaalada ay YouTube soo dhigo daawada sameeysta adinka is dhiirigaliya okay dhamaantiin inay fahanteen arjeenaya baby marka wax u marinaysa babyaash kale ma soo maseerayaan gacanta sirka arkosiin baby kala waaye meesha taaganta annama ii marisida taaganta tartan gabadhan kaliya ku qabanay hadda waa u soo mariyay ma sha Allah tabarakallah marka u soo mariyay quruxda badan ee ku soo baxday timaheeda waxa ku joogaysa hal saacado timaha ma kaamirisid hal saac kadib aad timaha ka dhaqaysaa hadda hal saacadood ka soo wareegtay markii uu mariyay kadib waxa uga soo dhaqayaa shaambada rayaan iyo sidoo kale conditionkeeda shaambadan iyo conditionkeeda waxa u doortay shaambada wax cusbaa ma lahan timaha ma jarayso repair ka qayb qaadanaysa sidoo kale treatment conditioner wadata markii aan marsanayno isbuuci 3 jeer hal jeer waxa ku dhaqaysaa shaambo labada jeer kalena waxa ku dhaqaysaa conditioner kaliya ku dhaqaysaa ama nafaqo markii aad timaha u soo dhaqa u soo nadiifiye u soo shaneeye waa u soo kadib hadda waxa u marinaa saliida okra oil saliidan waxay ka qayb qaadanaysaa timaha bixida madooweynta degdeg inaa natiijo u heshay tinta inay qoyso kartiin ay ku siiso timihii inay ka dhigto kuwa soft ah ma sha Allah tabarakallah ani saliidana badanaa u isticmaalaa gabdhahayga mar walba tartan aan ku qabtana waa aragteen shaambada iyo saliida mar walba waa ka saxa maxaa uga saxaya si aan natiijo qurux badan aad dhaqsi u gaaro marka natiijooyinka nii soo dhigo gabdhaha qaar waxay dhahaan Allahumma barik alaano natiijo ma tartanka ka heshay ma sha Allah tabarakallah muhiimadu waxa waa productigaaga inuu saxan yahay markaas heli kartaa natiijo adigana aad ku faraxdid brushka biyana leegama waayo hadii aad tartan aad qabanayo hadii aad shanladeena Soomaalida ay isticmaashid qashinka ku dar sababtoo ah waxa rabnaa daadasho inaan joojino shanladu waxa isticmaalaysaa alwaaxa ma fahanteen marka insha Allah ku dadaala agabid inaad bedeshin shaambada iyo sidoo kale nafaqada iyo saliidana aad saxdiin hadda waxa cabiraya tinta maadaama marka koowaad ay noo tahay natiijada sida wada ogtiin caadadii dhaqanka noo ahayd waxa soo bandhigaa marka u dambaysa before iyo afterkeeda after that timaha waa masaaj gareynaya masaajka xooli ugu dadaal intuu tartanka ku socdo si aad u heshid adigana natiijo aad ku faraxdid natiijada anaga ka helayna mid ka qurux badan adigana kula rabaa inaad ka heshid timahaaga rajadeeda dib aad u soo celisay aad u heshid timihii aad quusta ka taagantaa timihii aad ku riyoon jirtay aad u heshid timahaaga timo dhalaal leh oo qurux badan sidoo kale adigana waxyaabaha dabiiciga inay waxtar leeyihiin aad u ogaatid aad u sii dhiiratid marba meel aad ku boodaysid iska dhaaf insha Allah tartan hadii aad maraysid ama aad nala tartamaysid ha naga harin hana caajisin mar walba muuqaaladeena dhiirigelin ha ku noqdo insha Allah ha si fiican ugu masaaj gareynaya masaajka maadaama timaha bixidooda oo ka qayb qaato after that tinti sida quruxda badan ku soo baxday after massage kadibna tinta hal galaan ugu soo dhigaa sida caadadii dhaqanka noo ahayd ma sha Allah tabarakallah tintaada halkan galaan ka dhigo ama hal tadac ka dhigo muuqaalka waxa rajayna bilow ilaa dhamaad inaad fiirsatay wax badan aad ka faa'iiday part 2 waxba kale oo ku dhineen oo su'aal ay weydiinaysid tartankan aad toos u gali doonto insha Allah aana soo adeegatay waxa ku rajaynayaa inaad tartanka aad ka hari doonin aan noqon doontid commentiga ugu horeeya before iyo after marka soo dhiga aad dhahdid Allahumma barik abaa inta soo natiijo ka helay simsiman waa ma santa inay isoo qori doontid aan rajaynayaa asxaabta cusub ee
nagu soo biirtay hadda jecel inay tartan ka qayb gashaan adinkuna waa maasantiin soo dhawaada wixii product xarunteena waa keelisiin lambarka toos nagu soo xiriira welcome guys